ciyaartoyda maamulka koonfur galbeed ku matali doona tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa sameynaya diyaar garow adag oo isugu diyaarinayaan tartankan. koonfur galbeed waxay qayb ka tahay kooxaha ugu adag ee tartankan ka qayb galay iyadoo sanadihii u dambeeyay soo gaaraya meel fiican. ciyaartoyda matalaya sanadkan ayaa laga soo kala xulay degmooyinka kala duwan ee koonfur galbeed waxayna yihiin kuwa ka soo muuqanaya tartamadii xiisaha badnaa ee sanadihii ugu dambeeyay lagu qabtay guud ahaan koonfur galbeed Soomaaliya. tababarkii ay sameynayeen ciyaartoyda waxaa sidoo kale goobjoog ahaa maamulka sare ee xiriirka kubadda cagta koonfur galbeed iyagoo dhiirigelinayay xiddigooda. rajadooda sanadkan ee hanashada koobka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa wax ka weydiinay waxayna uga warbixiyeen diyaar garowgooda iyo filashada ay qabaan. sanadkan tababar weyn oo statekeena isdiyaaridka ah insha Allah sanadkan waan rajeynaa hadii la Eurooba koobka maamul goboleedyada intuu guuleysan hadii la Eurooba koonfur galbeed. sanadkii horena meel feele koyni sanadkan hadii la heero way barajeeyeen horta guud ahaan koonfur galbeed koobka maamul goboleedyada waliba ku qeyb galeysay dumar lamar heerka sama finalka koytay marna gurubyada keerti togdun hadii la heer waliba barajeeyeen meeli on sanad hor seedani meel ku sii fayle waa way buwaamay ku dhiganta markun final intii koyna koobka qaadna hadii la heer TV iyo arbile inta ku salaameen kuma hadaliyay shaqadu wanaagsan inta ka hayaan may lamadun oo lamun bilood bilin dareeray oo barkii oo state-ka wala state-ki madun degebe hadda kulay hulutaanka dhiidi alxamdulillah may dheerays diyaar garow faylowedna insha Allah sanadku may rajeen hub alleer inta guul taariikh yeesheen hub alleer insha Allah ma adilna gudoomiyaha sportiska koonfur galbeed mudane Axmed Dollar oo asiga ii doortay inaan matalo sanadkan xirfadeed aan ku caawiyo waxa kale oo mahadcelina macalinkeyga macalin Axmed Macalin Gidaambow macalin Axmed Kuus macalinkeyga macalin Geela oo magaalada Beedhow igu soo dhaweeyay dhamaan waxaan sheegayaa taageeraha koonfur galbeed sanadkan waxaan leenahay waa sanadkeena waxaan rabnaa waa ujeedaa tababara socdo qoraxda iyadoo saan u kulul energy ku bixinayna maasha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan in koonfur galbeed sanadkeeda ay noqoto kubad qurxoon soo bandhigo. koonfur galbeed ayaa ciyaarteeda koowaad la ciyaari doonta dhigeeda gobolka banaadir oo ah difaacayaasha tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir.